soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa qiso cajiib badan. nin doonaya inuu guursado gabar aad u qurux badan laakiin muxuu helay? haddaba intaynaan muuqaalka u gudagalin waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada. mahadsanin. mid ka mid ah dhalinyarada magaciisu yahay Anas ibn Caamir ayaa waxa uu doonay inuu guursado gabar aad u qurux badan. waxa uu raadiyay gabar aad u qurux badan laakiin waa uu waayay. waayitaankiisa kadib waxa uu la tashtay saaxiibadiisa. mid ka mid ah saaxiibadiisa ayaa waxa uu ku yiri, Anasow, waxaan ku hayaa gabar aad u qurux badan oo diin leh, haddaba ma doonaysaa inaad guursato? markaas kadib ayaa Anas waxa uu ku yiri haa. waxa uu u doontay gurigooda. markii uu u doontay kadib Anas waxaa lagu yiri, gabadhan waa gabar aad u qurux badan diinna leh. intaas kadib waalidkeedii waxay siiyeen gabadhii asigoon arkin gabadhii. markii arooskii dhacay kadib oo qolkiisii loo keenay ayaa waxa uu arkay gabadhii uu filayay gabar aysan ahayn. waxa uu arkay gabar aad u foolxun. markaas ayaa waxa uu ku qayliyay, waad ikhiyaanteen. intaas kadib waxa uu ka soo baxay qolkii waxa uuna tagay qol kale asigoo qolkaasi seexday. muddo 7 markii laga joogay kadib ayaa gabadhii xaaskiisa ahayd waxay u timid Anas waxayna ku tiri, waxaa laga yaabaa waxaad shar u malaynaysid inuu khayr kuugu jiro. markaas ayuu Ilaahay u tooba keenay Anas ibn Caamir. waxa uuna u tagay xaaskiisa waxa uuna la noolaa oo ay iskula dhaqmayeen sidii nin iyo naagtiisa oo kale muddo bil ah kadib waxaa mar kale Anas qalbigiisii soo degay shaydaan. waxa uuna ku yiri, gabadhan aad ay u foolxun tahay. intaas kadib Anas waa uu baxay. waxa uu ka hijrooday magaaladii uu degnaa asigoo ka tagay xaaskiisa, ehelkiisa iyo magaaladiisiiba. waxa uu maqnaaday waqti aad u fog. Anas naagtiisii waxay qaaday uurkaasi oo ay u qaaday Anas. waxay dhashay wiil aad u qurux badan waxayna ku barbaarisay diinta Islaamka. muddo waxa uu ka maqnaa 22 sano kadib ayaa Anas ku soo laabtay magaaladii. inta uusan gurigiisii aadin ayaa waxa uu soo maray masaajidka ayaa waxa uu ka arkay imaam dadka wacdinayo oo xasuusinaya qiyaamaha iyo axwaasheeda. intaas kadib waa uu la yaabay Anas. intaas kadib ayaa waxa uu dadkii weydiiyay sheekhan qofka uu yahay. markaas ayaa waxa lagu yiri, waxa dhalay nin la yiraahdo Anas ibn Caamir oo 20 sano ka hor magaaladan ka hijrooday. intaas kadib sheekhi ayuu u tagay Anas waxa uu ku yiri, waxaan doonayaa inaad imarti qaado oo aad imarti soorto. ninkii sheekh ahaa kama uusan diidin waa uu soo waday. markii gurigii albaabkiisa la yimid ayaa Anas waxa uu ku yiri, waxaad u tagtaa hooyada waxaadna ku tiraahdaa, waxaa laga yaabaa waxaad shar u arkaysid inuu khayr kugu jiro. markaas ayaa imaamkii baxay waxa uu u soo sheegay hooyadiis. markaas ayaa waxay ku tiri, soo dhaweey, ninka albaabka taagan waa aabaha. markaa kadib waxa uu soo laabtay wiilkii waxa uuna u yimid Anas. markaas kadib ayuu ku booday, way isdhunkadeen, laabtii ayayna iskariyeen. haddaba qisadan waxaynu ka faa'iideynaa hooyadaasi ma aysan ugu sheekayn xumaanta aabihiisa oo waxay u sheegi jirtay kaliya aabihiisa inuu soo laaban doono maalin maalmaha ka mid ah. uma aysan sheegin sababta uu ugu tagay iyo xumaantii uu u geystay iyo hijritaankii uu ka hijroodayba. waxaa looga baahan yahay inaan qofka bini'aadanka shakhsiyadiisa inaan fiirino oo inaan fiirin quruxdiisa iyo maalka uu haysto. haddaba qisadeena halkaas ayaan maanta kusoo gabagabayn doonaa. intaan muuqaalkiisa xiga ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.